وهذا سلام يا إخواني وأخواتي Soomaaliya ma isweydiideen waxa mar walba ugu celceliyaan ama ay ugu celceliyaan dowladda Itoobiya iyo maamulkeedu bad la'aan ma joogayno. Waxaa la yidhi doqonka usha agtiisa ku dhufo haddii uu ka dhiidhin waayana asaga ku dhufo. Ujeeddadu waxaa weeye dadku waxay arkaan baddan iska dheer, macnaha badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer Africa ayaan lehnay. Dad yarna waa nahay, dhulkiina waa weeye. Marka qofkan waxbaa u soo baxaya, waxbaa u muuqda. Dowlad nimana ma rabno, waxaan doonaynaa kala gogo iyo inaan ku noqono jaahilnimadii waqtigii birta ama waqtigii dhagaxa. Adduunyaduna maanta waxay u jeedaa dhul boob iyo ilo dhaqaale la raadinaya. Marka waxa lagu dhaga hadlaayo oo loo jeedo waa annaga. Ma garo ama ha garanayn. Qofka maanka gaabanu waxba ma garanayo, mana fahmi karo halista. Meeshan waxbaa la dilayaa, waxba meeshan la dhalaalinayaa. Waxa loo jeedo waa baddaan Ilaahay barwaaqada ku beeray, malayga xeebta iska taalla, meeshan internationalka oo istaraatiijiga, adigoo dad yara, adigoon ilaalisa karin, adigoon dowlad ahayn, oo ayagu ay mas-uul ka yihiin kuwan Itoobiyaanka dadkii ka dhigay dalkan saan oo faraha kula dhex galay oo adiga dhan ku dhex galay oo Itoobiyaan iska dhaadhicsiiyo oo dadka qaarkood ka dhaadhiciyay inay Itoobiyaan yihiin. Waxa loo jeedo Eritrea maahan, waxa loo jeedo Suudaan maahan, waxa loo jeedo oo laga hadlayo waa annaga Soomaali waay. Maxaa yeelay dadka Eritreaanku waa dad wadaniyiina, ma ahan dad gumaysina soo maray. Itoobiyaanna waxay tahay og dhulkoodana inkastay yar yihiin lagama yaabo intay nool yihiin in dad kale ama usoo dhex gala. Xataa si kasta hadduu dowladda mucaarad ugu yahay qofkaan uu u necab yahay madaxweynahaas Afwerki, lagama yaabo inuu usoo raaco cali. Marka macnaha dadka hurdaaya oo sheekada loola jeedo oo maalin la arko macnaha waa annaga. Sababtoo ah waxa sida loo marka macnaha ninkaad dili, ninkaad dagi, ninkaad dab inu qooleyso waa la isku kala daadiyayo sankaadidina wixii lagu calaamadayna wixii maantana laga hadla marka dambe waxay iska noqonayaan waxa wax iska caadi. Ujeedada loo jeedo waa annaga nolol biratumaya, annaga ayaa midiyada nolol soo faysanaya sida xoolo ayaan iska nahay, wan la iska qalanayo, midiyihiisa loo sahanayo oo iska jiifana. wax kale aan fakarayna gobol iyo khuraafaad iyo qabiil iyo jaanjaan ayaan ku jirnaa. Waxa uu u jeedo oo loo dan leeyahay waa annaga iyo badanada. Wayna iska cadaatay oo taariikh waaba la arkaba inay annaga soo taagan ay leeyihiin baddaana rabna. Wuu sheegay 50 kilomitir rabnaa yiri annaga. Xataa ma kiraysanayno, xataa maaragtay waxaan annaga inaan leena inaan anagu yeelano ma noqonayso. Intaasoo malyan ayaa nahay, 100 malyan 156 waxa rabta sheego. Annaga bad la'aan ma joogino, bad cidlaana meeshan iska holimayso. haye qasab maaha qof walba dhulka uu Ilaahay siiyey oo dadku ku beeray Ilaahay siiyey. Ilaa ma ku xumaado, ilaa ma ku samaado, bad ma ku laado. haddii laga kireeyo xataa kira ma jirto, haddii laga kireeyo xataa asaga yeelanayo hadhow. Marka waxaan ka digayaa dadka Soomaaliyeed inaad hurdada ka kacdaan. Adinka hoos waxaad rabtaan isku fiirfiiriya, laakiin inaad indhaha kala qaadaan ayaan jecelahay. Hadhow sheeko iyo macnaha iyo shalayto waxba idin tari mayso. intaad adinku isku xumaynaysaan oo walaalka cadow aad usoo hoggaansanayso
oo dee iska gagadayso macnaha etoobiyaan iyo yuhuud iyo wax daran, adiga iyo isdhexdaada maaragta. marka inta maskaxda le maan kale toosan waxaan kula talinayaa inay ka digtoonaadaan nimankaas. annaga baddana lama leh, dhulka annaga ay naga haystaan, dhulkii naga ay naga haystaan. waxaan ku talinayaa marka inaa xataa bad laga kirayn, haddii laga kiraynayana waa in canshuur laga qaadaa adag, shuruudo badanna lagu xiraa. dadka soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan maamulaan waxooda, wixii soo galana ay baaraan, cunto iyo dawo iyo wixii waa loo ogoli, laakiin hub maya. midda kale hadday rabaan in canshuur dhaaf loo sameeyo oo canshuur dhaaf loo sameeyo, waa inay faraha ka qaadaan dhulkan Soomaali galbeed, ay faraha ka qaadaan, ama madax banaani gooniya ha qaataan ama Soomaali ha soo raacaan. dhulka Soomaali galbeed waa inay faraha ka qaadaan, ma aha dhul Etoobiyaan, waa dhul Soomaaliyeed. markaas ayaan anagu iyo Etoobiya walaalo noqon karnaa. hadday dhulka anaga noo dhaafaan, dhulkaas noo dhaafaan, faraha nooga qaadaan, markaas ayaan heshii karnaa. ganacsi iyo baddana waxay rabaan ay kala soo degi karaan. laakiin intay dhul Soomaaliyeed haystaan oo nagu soo xadgudbayaan, oo gardarrada ay nagu samaynayaan, oo kibir iyo ay nagu wadaan, oo faragelin ay nagu wadaan, oo macnaha waana in laga saxiixaa qof ka soo horjeeda oo mucaarad ku ah dowlad Soomaaliyeed iyo arrimo Soomaaliyeed inuusan dhulkooda tegi karin, waxna ka soo abaabuli karin. xeelo badan ayaa loo baahan yahay. hurdada aan ka kaxno, caqliganagu ha shaqeeyo, sirta aan fahanno nolosha. waa idin salaam.